Assalaamu calaykum asxaabteyda waa idinku soo laabtay barnaamijkan ayaamahan ka kacsan youtube-ka ninkii Ridwaan ah horta alla kaftame hadda ilaa u baxday barnaamijkii almusaamax kariim oo Soomaali uu bilaabo saan hadda barnaamijkan soo arkooda waay labada naaga nin isku haysata wuu raadina barnaamijkii Naciimi Leila u qarxay barnaamijkan waa soo wada daawaday intuu dambeysay waxaa iigu dambeysay Leilo gabadhii ku booday oo raali gelinaysa uu nooga joojiyey saa wada ogeedeen halkii hadda nooga sii waday Leilo waa saaxiibteed waa isku duubtay Leilo si u lahayd maxaan sameynaa iyo ma sameyn karo iyo indhaa u taagaysay markii dambe dee way isxumeysatay yacni way isdhibsataan ka wadaa way ka xumaatay waxayna garwaaqsatay in saaxiibteed isku duubto Leilo ficil fiicana soo bisay ma sha Allah ma qaldami waa ilaah almusaamax kariim al dhahay Naciimo gabadhaas way ku soo kacday horta awalan dadka hortooda wajigeeda ku soo bandhigtay way dhuuman kartay dambigii dadka hortooda way ka qiratay intaasoo kun qof ay ka qiratay adiga xataa qiyaas dhibka adigu ku soo gaaray lama yacni xaqir karo waa dhib weyn laakiin adiga xataa qiyaas iyada dhibka ay kala kulmayso barnaamijkan ay soo hor istaagtay dambigana isku qirtay Soomaali waaye dadkan lagama fakanayo waxyaaba ay kala kulmi doonto inta ay daba socon doonto ayada xataa mar dhow soo ma kabsanayso inaa saas wax u fahantid waaye Naciimo abaayo almusaamax kariim ilaahay dartiis u saamax iyo inay is soo garatay adiga waxaa tiri ninka dambiga ma basaaraabi sax waaye horta labadiinoo kaleente markay tihiin labadiina gabdhood oo ceeshka wada cunay qaladka Leila iska leh si ayada qirsan tahay ninkana waa qaladka waa leeyahay laakiin waxaa la yaabay gabdhaha Soomaaliyeed sha'nigooda ugu weyn waa nin labadii istaqaanin isku haysataa waxaa ku dhahay tii ganacsatada ninka waa lagu haystaa tii jaamacad dhigan ismid kale ninku haysataa nimankan oo biisiga ah ku naha wallahi ma garanayo gabdhii dhan qoorta iskula jiraan gabar kale ku dhigan wax yar way ka duwan tahay marmarka qaar laakiin mostly waxay isku haystaan waa nin wallahi ma garanayo waxaa ka sheego wax kalena ma aha waa sidana loo soo barbaariyey aniga dhulalka kale ma tegin xamar aqaana hadaa xasuustay dib u celiyo yaraanteydii waxaa arki jiray in hooyooyinka ay wax walba gabdhaha ugu tusaaleynayaan nin guri nina kuu dambeeyo guri nin ku jir ama god ku jir nin fiican ma helaysa hadaa saan yeeshid saan hadaa wax karin karin nin ku rabo nina saan nina lagu daraa iyo gabdhihii oo levelka gabdhaha way kala yihiin oo 16 jirada 17 ilaa 20 gabdhihii oo markaas jireen oo nin biisi ku wada oo shukaansi biisi ku oo mid deerta nin la fakatay oo deerta mid oo nimanka xaafadda dhan isku shukaansanas mustaqbalka kaliya ee loo ifin jiray xilliga aan Soomaaliya joogo gabdhaha waa nin that's why gabdhihii moralki ka wada dilan yihiin gabar isku xishoota dhehayso war naga tagsa qajaayin walaashay qabtaa ama gabadhaas walaashay aan aqaana qabtaa naga tagana soo raadsanin ama reerkaaga saadayacanay or kuwaas daryeelo waa aad u yartaa gabdhaha maanta xitaa gabdhaha qurbaha joogo qoorta iskula jiraan ninay kala qaadanayaan marka I don't know ilaahay ma aragtide gabdhahana camalka lanta oo nimankan ahayn ha u sahlo hadda gabdhahan dhalinyarada ee ma sha Allah waxa meesha soo fariisiyay dhibkan iyo colaadan dhin dhaxmariyay waa nin ninkii wax ka sheegay ugu soo dhacday laakiin ma rabin wax ka sheego marka walaalayaalo iswaansano iscashano nin ma aha nolosha nin way ka beexad weyn tahay intii fahanta Allah naga dhigo inkastoo anaga iska Soomaali iska dhagoolnahay oo nalkuba soo barbaariyo ama nin daba socda ama god ku jira dhinta dad saas maskaxdooda loo soo dhaqaanahay laakiin hadaa barnaamijkii u soo laabto abaay waxaa leeyahay Naciimoy ilaahay maaragtay aan qaldamin abaay way qaldantay saa hor u sheeganay dadka hortooda inta kugu soo istaagtay ee kugu raali gelisay ayadana dhibaato badan soo gaarayso adigana dib weyn hore ku soo gaaray intaas yacni inaa garatid walaasha iska cafisid xoolahaagina ilaahay ayadana ha ka soo sahlo adigana ilaahay ha ku soo sahlo